بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة استديو نادي بوجينا ميجا بوك of modern English grammar aynu ka bilaabi doono bogga 203 halka ugu sareysa iyo macallin Nuur Ismaaciil Xirsi oo idin soo jeediya ku soo dhawaada. Marka waxaanu ka bilaabaynaa forming questions, samaynta su'aalaha وديالانيا prepositions حرف جركة at the end دمات كجلية. Look at the following examples بل تسألوين كان أفيرسو. table 81 و table كوبي ستيتن question وروا سؤالتكي auxiliary verb وفلكي عاوياها subject وفاعلكي verb وفعلكي مهم كاها object وي أما complement هتيا نقطه أما preposition أو قدام بيمركز. marka waxaan oran karnaa masalan where halkeebu has Tom Nicola come from kasoo jeeda. What is he waiting for muxuu sugayaa. What does he want the money for lacagta muxuu u rabaa ama u danaynayaa. Who did you give it to yaad siisay. Who is he running after kumu daba ordaya. What shall I eat it with maxaan ku cunaa. Okay, who did he shoot at kumu toogtay. Each mid kasta of these questions oo su'aalaha kamidi ends with waxay ku dhamaanaysaa preposition. Each mid kasta of kamida these questions su'aalaha ends with waxay ku dhamaanaysaa a preposition. Let us see plan fahanon eegno how sida such questions su'aalaha noocaasa are formed loo qaabeeyo. Stage koowaad, he is waiting for a bus. waxaa bus buu sugayaa. dabadna stage labaad wuxuu noqonayaa is he waiting for a bus ma bus buu sugayaa. su'aal caadi ah ka dhigaysaa yes or no question. stage ama marxaladda saddexaad is he waiting for what muxuu sugayaa. ama stage afraadna wuxuu noqonayaa su'aashii oo sax ah su'aalaadkii ku bilaabmaysa what is he waiting for. in the statement for a bus wuxuu ku yidhi in the statement wordhan aynu soo sheegnay for a bus kelmadda la yidhaha is a phrase waa phrase ama waxa weeyaan shibul jumla ama waa word eke which consists of ka kooban a preposition macnaha xaraf plus oo lagu daray a noun phrase macnaha phrase noun. The question word su'aalaadkuna replaces only wuxuu bedelayaa the noun phrase ka ayuu bedelayaa and it moved waxa loo raray markaas to the front position halka ugu horeysa but the preposition stays laakiin prepositionku wuxuu ku nagaanaya in its place meesheeda. But at another example salahan eeg stage kood wuxuu ku yidhi he wanted the money for books. bugaagta wuxuu doonayay ama lacagta wuxuu u rabay bugaag. stage labaad he did want the money for books. wuxuu u rabay waa tawkiitaasi ama adkayn the money for books lacagta bugaag buu u rabay. Did you want miyuu u rabay the money lacagta for books bugaag. Did you want the money for what muxuu u rabay lacagta. marka ugu dambeysay stage-ka shanaad waxay noqonaysaa what did he want the money for talo lacagta muxuu ku falayay. word order waxay tartiibta ay u dhigmaysaa ereyadu waxa weeye question wordkii ama erey su'aalaadkii oo lagu daray auxiliary verb ficilkii caawiya ahaa oo lagu daray subjectkii oo lagu daray ordinary verb ama falkii caadiga ahaa ama ficilkii caadiga ahaa oo lagu daray object haddii uu jiro haddii kalena complement dhammaystire macne ayaa daba dhacaya plus oo lagu daray preposition. maxaa loo dhahay markaa who is he shouting at yuu ku qaylinaya. who kuma ayuu isagu shouting at ku qaylinaya. we can frame waxaan ku qaaban karnaa a question mana su'aasha of this kind noocana with be ficilka be as oo loo isticmaalayo the main verb yani ficilkii oo weyn loo isticmaalayo. wuxuu ku yidhi macnaha time soo dhignay ee uu ku jiro auxiliary-ga iyo main verb-ku ay ku wada jiraan waxaan ku bedelan karnaa yani su'aashii oo verb to be-gii caadiga ahaa loo isticmaalay ficil caadi ah. wuxuu ku yidhi we can frame waxaan ku qaaban karnaa a question su'aasha of this kind noocan with be inagoo ficilka be u isticmaalayna as the main verb macnaha ficilkii muhiimka ah also sidoo kale waxaan odhan karnaa what are you busy in maxaad mashquul ku tahay. waayahay what is she interested in maxay xiisaynaysaa. what is she interested in maxay xiisaynaysaa. what are you so anxious about maxaad aad uga walacsan tahay. what are you so anxious about maxaad ka walacsan tahay. way markaas ficilada waxa kale lagu isticmaalayaa short answers macnaha su'aalaha jawaabaha gaagaaban to ee laga jawaabayo yes or no questions su'aalaha iyo maya.
study دراسة وبالبراشة كسمة the following question السؤال سوصعدة and their short answers يجوابه ذا جابن is it your pen مقالين كاجوا yes it is أما no it isn't how قالين كاجي ما يماها are your parents at home والد كام يقول جوجان yes they are أما no they aren't was your brother ill ولا كام يبكي yes he was how بكي أما no he wasn't ما يمبكين ما booking okay وياهي were the children quiet عرفت مي أمسناين yes they were أما no they weren't have you a large house كل وين مياد لهذا yes I have أما no I haven't has he a sister مي ولا ليهي yes he has how ليهي no he hasn't ما يملها had he ميو له stay enough money لعكو فلان ستي yes he had وهي stay أما no he hadn't ما يمهيسن is it rain من روب بعداية yes it is هاي روب بعداية أما no it isn't do you like jam كما تعشى وكسات yes I do أوان تعلى أما no I don't did he get the tickets تقدر ميسوق قضي أما ميسوق قاضي سات yes he did نعم أما no he didn't مايا have they gone مي بحين سات yes they have أما no they haven't can you swim متبالن كرتا yes I can أما no I can't will George pass طلب جورج موجود بدون امتحان كديس يير سنة كان سات yes he will أما no he won't you will notice waxaad ogaan doontaa that all these questions in dhammaan su-aalahaasi haf ay leeyihiin haf ay qaadanayaan either midkood yes or no ama yacni maya for their answer jawaabtooda ama as their answer jawaabtooda you will also sidoo kale note that waxaad ogaan doontaa the answer is jawaabuhu arshooda inay gaaban yihiin the answer is jawaabuhu consist of waxay ka kooban the following elements anaasirka ama ereyada soo socda in affirmative answers jawaabaha affirmative ama ijaabiga waa in onsa yes oo lagu daray pronoun oo lagu daray auxiliary okay is it your pen behind yes it is okay did he get the tickets yes he did in negative answers jawaabaha negative kana waa no oo lagu daray pronoun oo lagu daray auxiliary iyo not badok u fiirso is it your pen no it isn't did he get the tickets tigidhadii miyuu helay no he didn't the short answers jawaabaha gaagaabani stop with waxay ku joogsanayaan the auxiliary ku joogsanayaan ama ay ku dhamaanayaan you will notice waxaad ogaan doontaa another thing shay kale also sidoo kale where the subject is the question where meel alla meel kasto the subject faacilka in the question su-aasha ku jira is a noun uu magac yahay it is replaced waxaa lagu bedelayaa in the short answer markay jawaabtu gaaban tahay by it is pronoun magacyaalkeeda were the children quiet caruurtu miyay aamusnaayeen buu ku yidhi yes they were marka daydaas waxay u noqonaysaa caruurtii ama no they weren't will George miyuu George baas gudbi doonaa this year sanadkan yes he will hidaas waxay u noqonaysaa George ama no he won't wuxuu ku short answers jawaabaha gaagaaban are used waxaa lagu isticmaalaa in conversation muxaadasada ama wada hadalka to avoid si loo mamnuuco ama loo joojiyo repetition ku noqnoqosho this will become tani waxay noqonaysaa clear waadax when you compare markaad garab dhigto the short answer jawaabta gaaban with the complete answer jawaabta dhammaan iska tiran was your brother at home walaalkaa guriga muu joogay has he a sister walaal miyuu leeyahay gabadha walaala can he play tennis ma ciyaari karaa short answer jawaabi gaagaaban waxay noqonayaan yes he was how uu ahaa ama no he wasn't ma yani ma joogin okay yes he has wuu haystaa ama uu leeyahay no he hasn't ma laha yes he can wuu dabaalan karaa ama uu ciyaari karaa no he can't complete answers waa jawaabi gaagaabna waxaa leeyahay complete answers waa jawaabtii oo dhammaystiran halkii yes he was at home baad leedahay gurigu joogay ama no he wasn't at home guriga ma joogin yes ayo he has a sister gabadh walaal buu leeyahay ama no he hasn't a sister ma laha gabadh walaalaa ama inan walaalaa okay can he play tennis bay hayda sat yes he can play tennis wuu ciyaari karaa tennis ama no he can't play tennis other examples waa tusaalooyinka kale are you staying here miyaad halkan ku nagaanaysaa sat yes I am ama no I'm not could you wait for some time qadar ma sugi karaysaa sat yes I could hawaan sugi karaa ama no I couldn't ma sugi karo may I leave now hadda ma iska bixi karaa talow sat yes you may waad bixi kartaa ama no you mayn't will you come to the party xafladda ma iman doontaa yes I will nacam ama no I won't okay will Ruby talo miyuu Ruby dance ay ciyaari doontaa tonight caawa sat yes he will ama no she won't okay would you have more coffee bundheeraada maad cabbi sat yes I would ama no I wouldn't okay should I marry her talo ma iska guursadaa gabadha
sati yes you should ama no you shouldn't ma aha kuma fiicna wuxuu ku yiri sorry must you leave now ma hataa waajib tahay inaad tagto sati yes I must ama no I needn't ma wallahi daruuri ma imika must she take ma inay gashay this examination imtixaankan sati yes I or she must waajib ama no she needn't ma uma baahna okay need I put on a new dress ma inaan labis cusub gashada yani daruuri tahay sati yes you must waba kugu waajib ama no you needn't ma daruura maaha would I to answer this letter now waraaqdan hatta miyaan ka jawaabaa sati yes you ought to hayo inaad ka jawaabto weeye ama no you oughtn't okay waayahay verbku wuxuu muujin karaa kale expressing agreement and disagreement with remarks expressing wuxuu muujin karaa agreement inaad waxa ku raacdo qofka and disagreement ama aad ku khilaafto with remarks faafahinta auxiliaries ficilada auxiliary-ga are also used waxa loo isticmaalaa to express inay muujiyaan our agreement macnaha wifaaqeena ama yani ku raacida aad ku raacayso or ama disagreement aad ku diidayso with remarks follow ama observations kormeer ama comments follow okay etc wixii la mid ah that people ay dadku make sameeyaan these are kuwani somewhat similar waa wax la mid ah to show the answers jawaabaha gaagaaban to questions marka laga hadlayo su'aalaha discussed laga hadlay above xagga sare ama hore looga soo hadlay agreement with affirmative remarks agreement markaad qofka ku raacayso with affirmative remarks follow yani mesela kale affirmative ama ijaabiya word orderku wuxuu noqonayaa yes iyo so iyo of course plus oo lagu daray pronoun ama plus auxiliary if there is no auxiliary hadaan auxiliary ku jirin the sentence jumlada we use waxaan isticmaalnaa does baynu isticmaalaynaa in place mahalka of the main verb yani falka weyn ee muhiimka insert person ee damiir qaa'ibka okay singular oo mufrad in the present tense markaynu ka hadlayno present tense duna waxaanu isticmaalaynaa in place mahalka ama meesha of the main verb falka muhiimka in all the other case dhammaan axwaasha kale in the present tense markaynu ka hadlayno present tense okay didna waxaanu isticmaalaynaa in place mahalka ama meesha of the main verb falkii muhiimka ahaa in all cases ee dhammaan axwaasha in the past tense maadiga okay waxaan ku mesela do you go to school kamata yes I do ba kaaga filan okay does he play football kubadda ma yes he does saasarnosa remember waxaad xusuusanaysaa we use inaynu isticmaalayno yes inaynu isticmaali karno for simple agreement ku raacida fudud so for surprise haddii la yaab ay muujinayso oo kale sona waxaynu isticmaalnaa for surprise markay la yaab muujinayso of course na waxaynu u isticmaalaynaa for something shay obvious iska cadaanon muran ku jirin is it very hot in this room qolkan ma kuleelba sati yes it is he made a fool of himself nacas buu noqday naftiisa buu doqon ka dhigay of course he did nacam wallahi waa caynka run ahaantii your brother is shaking all over war walaalka uu ruxmaya uu gariiraya so he is waaba sidaasba okay she has a beautiful hand gacan qurux badan baa yes she has okay girls like yani hablu waxay jecleen to be admired in loo khushuuco oo lala dhaco la jeclaysto sati of course they do okay agreement waa markaad ku raacayso qof with negative remarks yani negative remarkana ama yani faafahinta negative-ka waxaad isticmaalaysaa word orderka tartiibta ereyada noocan ka kooban no kelmadda la plus oo lagu daray pronoun plus oo lagu daray auxiliary iyo not haddii loo baahdo she isn't beautiful gabadha qurux badan maaha sati no she isn't waba ma xagee ka tay okay they aren't good players ciyaartooy fiican maaha sati no they aren't he doesn't drink too much war wax badan ma cabo sati no he doesn't okay she didn't sing well si wacan uma haysin sati no she didn't xagee uga heesta we can't defeat their teamkooda kama adkaan karno okay no we can't tani waxa weeye markaas disagreement waa khilaaf aad ku khilaaftay with affirmative remarks haddii hadalku yahay affirmative word orderka ama tartiibta ereyada la isticmaalaya waxa weeye no kelmadda la yidhaahdo or no labadaasoo la israaciyay plus oo lagu daray pronoun magacuyaal plus oo lagu daray auxiliary plus oo lagu daray not oo la soo gaabiyey laakiin kuwa qowska ku jira waxa weeye optional macnaha waa khiyaar waana laga iska tegi karaa waana lagu dari karaa but laakiin is used waxaa loo isticmaalaa to disagree with inaad ku khilaafto
but kelmadda la is use waxa loo isticmaali karaa to disagree markaad khilaafayso with assumptions macnaha yani waa fikir oo kale assumption ama xaqiiqo jirta and questions iyo su'aalo assumption macnaha yar badan bay samaysaa waxa weeye anigoo ka duulaya assumptionka ama yani xaqiiqada anigoo ka duulaya macnaha assumptionka ama yani fikirka anigoo ka duulaya macnaha qabsashada oo awoodda la wareegin oo la odhan kara assumption okay and question is su'aalaha Paris is the capital of England so, oh no it isn't war maaha niyo Ingiriiska xagee ka tahay taasi waa Faransiiska he is too strong for you ka xoog badan no he isn't wallahi iga xoog badnay okay you will hurt yourself naftada wax yeelaysaa no I won't no ma yeelayo we can surely buy a car xaqiiqa waxaan iibsan karnaa baabuur but we can't war ma iibsan karno okay why did you agree to marry her war maxaad u raacday inaad gabadha guursado but I didn't ma raacine marka waxa weeye disagreement adoo khilaafaya oo macnaha ku diidaya qof baa negative kalam yidhi ama word negative adna neft word negative xaga kala adkeeyaysa markaas disagreement waa khilaafad kulaatay with negative remarks faafahin yani negative word order ku ama tartiibteeda iyadoo ay u dhigmaan marka la jawaabi waxa weeye yes kelmadda la dhaha or ama oh yes plus oo lagu daray pronoun plus oo lagu daray auxiliary you haven't spent everything war wax kasta maad kharash gareyn oh yes I have war waan kharash gareyniyo I can't carry that bag shandada ma qaadi karo said yes you can war waad qaadi kartaa nagada hadalkaniyo she doesn't meet him often inta badan ma aragto lama kulanto said oh yes she does war maxaad beenta u sheegaysaa way la kulantaay okay he isn't very talkative war nin hadal badan maaha said yes he is wallahi waa yahay okay this medicine won't harm you tani dhibaato ku geysanaysaa oh yes it will war tani waa dhibaato midhan maxaad beenta noogu sheegaysaa okay we could addition is to remarks made we could add verbka waxa kale loo isticmaalaa auxiliary verbska addition is yani ku daritaanka lagu siyaadinayo to remarks faafahinta are sometimes ayaa marka qaarkood made lagu sameeyaa auxiliaryada look at the following example tusaalaan soo soo fiirso George has a car George baabuur buu wataa so have I aniga lafteeda waa haystaa affirmative addition is markuu hadalku affirmative ama wax lagu darayo oo lagu darayo to affirmative remarks word faahfaahina oo yani affirmative waa addition affirmative ama ijaabiya oo lagu darayo faahfaahin yani ijaabiya nawdu fiirso the word order tartiibteerayadu in affirmative addition is marka ku daritaanka la sameeyo nawdu also sidoo kale u fiirso the inversion taqallubka ama kala rogitaanka la kala rogay of the word order tartiibteerayada so lagu daray auxiliary plus subject so have I kolka hore I have so bay hayd haddaynu ingiriiskii saxda ka hadlayno laakiin so have I waa markaad agree garaynayso ama aad ku raacayso yani jumlada affirmative okay but the table sidoo muujinayo fiirso table 82 he is very active or qof firfircoon so is his wife wallahi xaaskiisuna waa sida okay apples يعني تفاح أركوستر وقار قيمة بدن so are grapes the عنب كوا سلاسة محدو ديديسا George likes detective stories George England likes وحش على detective stories يكون كسرتها so do I أنا قلت إذا الله قبابا you can come in my car بابور كي ساتري so can your friend صاحب كان سوكر وسوق لي كرا he will stay at this hotel كانوا دقيقونا so will our friends the أصحاب تيدونا وحبا كما قبلين إن لدقه وهي مركلة waxa lagu isticmaalaa affirmative additions waa yani addition ama siyaado affirmative ama ijaabiya to oo lagu biirinayo negative remarks faahfaahin negative word order ku wuxuu noqonayaa but oo lagu daray subject oo lagu daray auxiliary he won't help you kuma saacidayo but I will laakiin waa saacidee okay ama saacid doona table-ka 3 ama shaxanka ama chances-ka 3 ayaa muujinaya he won't help you kuma saacidi doono but I will okay she can't drive a car baabur ma wadi karto but you can you have any spare tickets or wax tigidho spare maasid but they have laakiin way istaan waa beentiise they don't enjoy music ma xiiseeyaan but we do laakiin waa xiiseynaa she hasn't changed much after his marriage wax badan ismay bedelin xitaa guurka kadib laakiin waxa la yidhi but his wife has laakiin xaaskiisu in badan waa isbedeshay wuu iska hadlayaa isbedelku wuu dhacay okay wuxuu ku yidhi negative addition waa ku daritaan negative oo lagu darayo negative remarks faahfaahin negative iyaduna word orderku wuxuu noqonayaa nor ama neither oo lagu daray auxiliary oo lagu daray subject
I can't help you aan ku idhi neither can he war anigu kuma saacidi karo neither can he walaa huwa yusaacid yani isaga laftiis ku saacidi maayo okay table 84 waxaan shaxanka 4 ama chanceska 4 muujinaysaa soo kale I didn't like the film war filmka kamaan helin nor did my friends wallahi asxaabteeduna sidoo kale way nala qabeen the students couldn't solve ma xalili karaan oo kama shaqeyn karaan the problem mas'alada sati nor could the teacher wallahi macalinka laftiisa aaban kareynba he doesn't talk much wax badan ma hadlo sati neither does his wife wallahi xaaskiisuna way la qabtaayo wax badan ma hadasho Alice isn't very pretty Alice ma qurux badna nor is her sister walaasheed baan qurux badan iska daayade you haven't much time waqti badan ma haysid sati neither have I aniga lafteeda la qabo waqti badan ma hayo way negative additions waxaan macnaha ku siyaado negative oo lagu biirinayo affirmative remarks faafahin yani affirmative oo ijaabi ah waxay noqonaysaa bad oo lagu daray subject-ga oo lagu daray auxiliary oo lagu daray not laakiin auxiliary iyo not dambe waa optional waana laga tagi karaa waana lagu dari karaa laakiin daruuro waa in lagu daro okay he tolerates foolish he tolerates wuxuu u dulqaataa foolish nacasyada but I don't wallahi laakiin anigu ma dulqaato weligiiba ha dulqaatay isagu okay table 85 chances ka 58 ayaa muujinaya taasoo kale you can come in my car baabuurkayga waad gali kartaa but your dog can't laakiin aygaagu ma I was listening when dhageysanayay but he wasn't laakiin isagu ma dhageysanin okay cats and bears cats bisadaha and bears iyo baasha madax ku tida la yiraahdaa can climb trees dhirta way fuuli karaan but lions can't laakiin libaaxyadu ma fuulaan okay a cow has a long tail sac daba dheer buu leeyahay but a camel hasn't laakiin daawrku ma laha my father liked fishing abay wuxuu ka heli jiray kalluunka ama kalluumaysiga but my mother didn't laakiin hooyaday may jeclayn way intaas markaynu ku sii jirnay 4 waxaynu u galaynaa question tags oo su'aalaha gaagaaban question tags waxaan su'aalaha gaagaaban alaysa kadalik kuwii carabiga loo dhan jiray alaysa hada ahakada saxiix oo kale ereyada noocaasa oo carabiga u tagnaa isantihi iyo dasi like so saasoo kale question tags oo su'aalaha gaagaaban look at the following sentence bawra soo soo eeg you are coming tomorrow barad manisa aren't you alaysa anta kadalik miyana sida ahayn in this sentence jumladan the speaker qofka hadlaya has said something kalmad buudi and then the added wuxuu ku daray a short question su'aal gaaban he expects wuxuu ka filayaa the listener dhageystaha to say yes and yes yiraahdo and okay and seek so radio confirmation ta'kiid ama xaqiijin this short question su'aashan gaaban iskoolada waxa dhahay question tag su'aal gaaban question tag su'aalaha gaagabani are very common caam bay ku yihiin ama aad ba loogu yaqaanaa in conversation muhadasaadka okay number 1 the verb falka in the question tag ku jira question tagu is either wuxuu noqon karaa the auxiliary macnaha auxiliary used lagu isticmaalay markii hore in the statement warbixinta or ama wuxuu noqon karaa the proper form macnaha qaab gaar ah oo sax ah of do ama does ama did number 2 if the statement hadii warbixintu is affirmative the question tag su'aasha yani gaabani is negative did may noqonaysaa this negative is formed by waxa la isku xidhaya ama lagu sameeynaya by combining adoo ku dara ama lagu biiriyo the auxiliary with not kelmadda not la yiraahdo but laakiin if the statement hadii warbixintu is negative ay diidma tahay the question tag su'aasha gaaban will be waxay noqon doontaa positive ijaabi he isn't very intelligent warma maskax badna isi huwa yani hakim man maskax badan ba there is always a comma hadii jeer hakad baa dhacaya bidin halka u dhaxaysa statement warbixinta and the question tag su'aasha gaaban and of course taban there is a question mark calama su'aal baa dhacaysa at the end of the sentence yani dhamaadka jumlada balado fiirsa markaas positive statements waxaan jumlada yani positive ka with a wata negative tags su'aalaha gaagaaban diidmada okay I'm in time ma habsaamina waxa xilliga loo baahan ama ay miyana cayn kaahin ama aren't I أليس أنا كذلك؟ Okay, he is not one دقادق. Isn't he? أليس هو كذلك? It's a noisy class book بدن. Isn't it ميانة أهين?
they are reaching tomorrow bari soo gaadhay halkan aren't they miyana cayn ka ahayn okay the hotel rooms qolalka macnaha hotelku the hotel rooms were dirt waxaan uskag weren't they miyana cayn ka ahayn you have finished writing qoraalka waa dhamaysay haven't you miyaad dhamayn okay she had typed way garaacday all the letters waraaqii oo dhan hadn't she miyana garaacin okay it had stopped uu joogstay raining roobkii isn't it ama hadn't it okay she has a new dress labis cusub ay haysataa hasn't she okay south is missing her lives here halkan uu degan yahay doesn't he miyana cayn ka ahayn they speak English at home dalkooda markay joogaan ingiriiska ayay ku hadlaan don't they miyana cayn ka ugu hadal okay you are a lot yeah you are waxa tahay a lot yani qof hadal badan aren't you okay ama can't you okay ama sorry you ate waxaad cuntay a lot wax fara badan didn't you miyaad cunin you can settle this yourself adiga xalili kara arintan can't you miyaad xalili karin he could help me wuu caawin karay couldn't he miyaanu caawin okay you will stay with us oo dana joogi doontaa won't you so ma okay they would join us at the picnic tamashlaa way nagu soo beeri doonaan wouldn't they okay sorry we shall reach there halka waxaan tagi doonaa by tomorrow beritole shall we miyana cayn ka ahayn okay I should send this letter today maanta waa inaan waraaqdan diraa shouldn't I we must give more time to English luqadda ingiriiska waa inaan waqti badan siinaa mustn't we okay you must buy the tickets tigidhada waa inaad ku iibsataa in advance qadin mustn't you so maaha we ought to work for our country waa inaan dalka u shaqaynaa oughtn't we miyaana inala gudboonayn we used to live here halkan aanu deganaan jirnay didn't we alaysa nahna kadalik okay tan markaas waxa weeye yani affirmative statements jumlada ayaa affirmative ahayd question taguna waxa negative tan waa bilcaks negative statements waa word negative with or positive tags su'aalo gaagaaban oo ijaabi ah I'm not at fault qalad kuma jiro am I de maqalad baan ku jira okay the book isn't very interesting xiisa ma laha is it okay they aren't very tactful qaar yani tactic fara badan lama are they the women dumarka the party xaflada jooga weren't quiet may amusnayn were they may amusnayn okay there weren't many people dad badan ma joogna the function hawsha were there akana hunak halka may joogeen okay waayahay wuxuu ku yiri okay you haven't any books on painting you haven't ma haysatay any books wax buugaaga on painting oo la xiriira sawir gacmeedka have you okay they haven't any trains in Arabia they haven't any trains ma hayan traino in Arabia macna Arabia u baxaya have they is missing there hasn't much common sense aqli badan ma laha hazi the car baaburku hadn't much petrol mu isticmaalin petrol badan hadid he doesn't understand French Francisco ma fahmayo does he okay they didn't play well so anu ma ciyaarin did they she doesn't love you kuma jecla does she okay you don't want to marry that fat girl inta buran guursan maysid do you ma sidaasa okay you can't go on living like this you can't go uma socon kartid ama ma wadi kartid living like this inaad san noolaato can we okay they can't always fool us hadii jeer nama fool garan karaan oo yani nama yasi karaan oo kale ama nama fool garan karaan can they the mountaineers dadkii buurfuulayaasha couldn't climb the peak way gaari waayeen ficti ugu sareysay could they you couldn't possibly believe him sida suurtagalka inaad aaminin baan u malaynayaa could you okay they may not live without permission lagama yaabo inay baxaan bila permission saturday okay may they yani ma laga yaaba you mustn't delay dib ha u dhigina marriage guurka mazyuma inaad dib u dhigtaan miyay tacaynkaasi you needn't be in such a hurry you needn't be ma inaad ku sugnaataan in such a hurry degdega noocaasa need you madaruura he oughtn't to betray maaha inuu ku bari furo he oughtn't to maaha inuu betray ku bari furo his friend saaxiibkii ood he we shan't go with him ma raaci doono shall we miyaan raaci doonaa she shouldn't drive so fast okay should she the bird shimbirtu won't fly away ma duuli karayso weliid miyay duuli doontaa they wouldn't lose their way in the city they wouldn't lose mana kama amban doonaan their way dariiqooda in the city magaalada would they way halkaas macnaha ficilkii baa inoogu dhamaaday
wixii la oran jiray ficilka in general marka laga hadlayo iyo waxyaabuhu qabanayo waliba auxiliary oo aad loogu dheeraaday ayaa halkaa inoogu dhamaaday. waxaan u gudbay doonaa markaas layliska adaan ku dhaafaya layliska oo dhan idinka ayaan idin dhaafaya. waxaanu bilaabi doonaa markaa chapterka cusub oo soo socda. okay, chapterka cusub muxuu noqonayaa markaas? okay, waa auxiliaries. يعني chapter cusub ma kii horun buu la xiriiraa. waa auxiliaries. inta hore oo dhamme waxay ahayd laylis. marka auxiliary-gii baa midmid loo taabanaya. midmid ayaa loo taabanaya. auxiliary-gii ayaa midmid loo taabanaya. okay, bal hadda u fiirsa markaas auxiliary-ga marka midmid looga sheekeynayo sida loo isticmaalayo. auxiliaries waa fal musaacidkii ama falkii ama ficilkii wax caawinayay. waxaanu soo qaadanaa b iyo half iyo do. b waa ficilkii ahaanshaa, halfna waa haysasho, dona yacni qabasho oo kale. marna su-aalahay samaynaysaa. marka imika waa helping verb yani waa yani waxa habkii su-aalaha lagu samaynayo weeye. infinitive waa asalkii ficilka. present tense waa markii joogay waxaasi. past tense waa maadigii. past participle-kina waa qayb ka mid oo ficilka tagtay. first person-kii wuxuu noqonayaa am, yani markay jamaca tahayna waa r. markay past tense waa was iyo were. markay past participle waa been. second person-kii waa r iyo were, singular iyo plural labadiiba. third person-ku markuu singular-ka yahay waa is. marka uu yani yahay jamacna waa r. hadduu past tense yahay waa was markay singular tahay. markalena waa were. marka b kelmadda la yidhaahdo is used waxaa lagu isticmaalay in all passive constructions dhammaan taraakiibta majhuulka ah. b kelmadda is used waxaa lagu isticmaali karaa in all passive constructions. the continuous form macnaa continuous formka of b ficilka b la yidhahdo is being. okay, the boy inanki was given a prize, jaa-isad baa la siiyey. his watch saacadiisii has been stolen waa la xaday. English luqadda ingiriisiga is used by a large number of people. meelo badan baa laga isticmaala, dad badan baa isticmaala. he has been admitted to a college. he has been admitted waxa loo ogolaaday to a college kulliyeed. the thief tuggii is being taken to jail. is being taken waxa loo qaaday ayuu qaado waxa loo qaaday to jailka. the road wadadii was being repaired waa la ragcayay ama dib baa loo kabayay. for further discussion tafaasiil dheeraada. for further discussion falanqa dheeraada on passive constructions taraakiibta passiveka ama yani sasaarka passiveka la xidhiidha. si waxaad eegtaa the chapterka on active and passive voice. labadaasi ku yaalaan musamaa iyo macruufka. wuxuu ku yiri bal hadaba fiirso passiveka marka uu yahay with infinitive. marka infinitive la raaciyo verb to be to express wuxuu muujin karaa future arrangements qabanqaabo mustaqbalka lagu talagalay. we are to start early in the morning. nin baa we are to waxayna la gudboon start inaynu bilowno early goran in the morning subaxnimada. he is to reach here by noon. waa inuu halka yimaadaa by noon yani waqtiga duhurka. number 2 wuxuu ku to give waxay keenaysaa markaas ama mar labaadka lagu isticmaalayo marka infinitive la isticmaalayo to give inay bixiso instructions macluumaad. you are to receive him at the station ama amar oo kale. you are to receive him waa inaad ku qaabisho at the station maxadada. you are to waxa kula gudboon receive him inaad ku qaabisho at the station maxadada. he is to type waa inuu type gareeyo all letters waraaqahoo dhan before leaving yani intaanu tegin. the order tartiibta ama yani ereyada tartiibtooda in 1 and 2 1 iyo 2 is waxay noqonayaan subject oo lagu daray b oo lagu daray to oo lagu daray infinitive oo lagu daray complement dhamaystire. number 3 wuxuu ku to express waxay muujin kartaa marka nooca loo sameeyo immediate future mustaqbal dhaqso degdega. haddii lagu isticmaalana word oo dharkeedu wuxuu noqonayaa subject oo lagu daray b oo lagu daray about oo lagu daray to oo lagu daray infinitive oo lagu daray complement kii macna dhamaystiraya ama ereygii macna dhamaystirayay. the bus is about to leave. the bus is about wuxuu ku dhowyaa to leave inuu baxo. marka the bus is just going to leave. the market saribadu is about to close waxay u dhowdahay inay xidhanto. okay, sida b kelmadda used oo loo isticmaalay as a helping verb. macnaha helping verb markay tahay wuxuu ku in the formation way waxa inoo sii socda xalqadeena 18aad. waxaynu maraynaa boga 217 qaybta sida b kelmadda used loo isticmaalay as a helping verb ficil saacide.
wuxuu waxa lagu isticmaalay in the formation qaabaynta of continuous tense macnaha ficilka mustamirka ee socda. Look at the following sentences bal weedha soo socda eeg. She is drawing waxay sawiraysaa picture sawir. They were going to the zoo beerta xayawaankay tegayeen. He is waiting in the drawing room wuxuu ku sugayaa qolka sawirka. George Nicola was taking his food cuntada ayuu qaadanaya ama cunaya. He will be taking his examination imtixaankana wuxuu gali doonaa next year sanadka soo socda. I have been reading waxaan akhriyay since morning ilaa saaka. In all these sentences weedhahan oo dhan be kelmad la dhaw this forms ama noocyada ashkaasheeda ariyista waxa loo isticmaalaa to form inay qaabeeyaan continuous tense fal mustamiros of the verb continuous tense semen mustamira of the verb of ficilka sida is drawing oo kale you were going you was taking you will be taking have been reading. Sentence 5 sentence ka shanaad ee macnaha kuwan soo marnay makes use of wuxuu ka faa'iideysanay be itself be nafteeda. Okay, and in the last sentence jumlada ugu dambeeyana which is oo markaa in perfect continuous tense we use waxaan isticmaalnaa the form been yani ka ugu dambeeya past participle been la yiraahdo. qaybta d da wuxuu ku yiri be kelmad la use loo isticmaalay as an ordinary verb fal caadi loo isticmaalay. Number 1 to express waxay muujinaysaa existence jiritaan. To express waxay muujinaysaa existence jiritaan or to give information about warbixin bay muujinaysaa a person qof ku saabsan origin ama shay ku saabsan. Tusaalahan maxaa ka mid ah Africa qaarada Africa is a continent waa qaarad. My father is an engineer waa nin engineer ama muhandisa oo aad yani farshaxanka u yaqaana. Copper maartu is a metal waa macdan bir ah. Smith Nicola was tall waxaa nin dheer and handsome oo qurux badan. Number 2 waxay muujinaysaa kurtiga express inay muujiso age da size baaxad weight miisaan etc iyo wixii la mid ah. I'm 20 waxaan 20 jir. This building is 50 feet high. Dhererkiisu waa 50 foot. She is 50 kilograms or 50 kilogram in weight xagga miisaanka. Number 3 waxa ku yiri in imperatives waxa lagu isticmaalaa amarka iyadoo sideeda ah waxa la oran karaa be quiet yani fadlan aamu be a good boy in wanaagsan ahaw. taasi waa bd have markaan soo qaadan. Okay, infinitive keedu waa to have. Present tense iyo past tense iyo past participle key first person or singular iyo plural waa have iyo have. Past tense kooduna waa had iyo had. Past participle kuna waa had. Okay, second person ku singular iyo plural labadaba jamac iyo mufrad buu have iyo have. labada kalena waa had iyo had. Okay, third person ka singular iyo plural kiisa waa has plural kiisa waa have. inta kalena waa had. marka have kelmad la as an auxiliary verb markay tahay fal musaacid ama fal caawiye is used waxa lagu isticmaalaa to form inay samayso marka hore perfect and perfect continuous tenses. Macnaha perfectiga ama falka dhamaaday ficil ahaan laakiin taasiirkiisa joogo iyo kuwa macnaha sii socon doona ee yani from past ka soo bilaabay ilaa present kana socon doona. He has come hadda inbuu yimi. I have brought it hadda ayuun baan keenay. She had finished very hore dhamaysay. He will have come home by now hadda guriga wuu iman doonaa. Macnaha he will have come home by now hadda guriga wuu iman doonaa. You have been working waxaad shaqaynaysaa ilaa haddana shaqaynaysaa for 2 hours 2 saacadood. Yet they had been living here halkan waxay deganayeen for 2 years 2 sano hore laakiin hadda ma joogaan. waa past perfect continuous. Number 2 waxa lagu isticmaalaa with infinitives mujarradka with infinitive kama la maxduudka oo to express muujinayo obligation waajibaad. maxaa la odhan marka you have to obey him waa inaad adeecdaa. waxay la mid tahay adoo yidhaahda you must waxa kula gudboon obey him inaad adeecdo. I had to come back soon. I had to waxay la gudboonayd come back inaan soo laabto soon si dhaqsa ah. I had to come back soon waxay ahayd inaan dhaqso u soo laabto. Okay, inaan dhaqso u soo laabto ayay ahayd. Okay, number 3 wuxuu ku yiri in causative constructions habka sababiya wax sabab muujinaya. In causative constructions waa wax sabab muujinaya ama tarkiib muujinaysa sabab oo kale. Word orderkeeduna wuxuu noqonayaa subject ama faacilkii oo lagu daray have oo lagu daray object oo lagu daray past participle. marka baado fiirso I asked someone to paint my house. I asked waxaan weydiisay someone qof to paint in masalan irinjiyo my house gurigayga.
This could be rewritten dib baa loo qori karaa iyadoo have loo isticmaalayo as I had my house painted. marka waxaan I had my house painted waxaan helay gurigaygii oo la rinjiyeeyay marka someone else qof kale painted it for me ii rinjiyeeyay bay ka dhigan tahay. Similarly si lamida I asked someone qofaan masalan weydiiyey to cut my hair inuu timaa iga xiro every month bil kasta. Causative use-ka habkii sababiya ahayd waxay ahayd mana aan ku keenay qof I have my hair cut every month timahayga bil kasta waa la xiraa marka cid kale iga xirto daanu iskama xiray ka dhigan tahay. Okay, table 88 ku sidaas uu muujinaya subject oo lagu daray have ama had oo lagu daray object-kii oo lagu daray past participle-kii. Salahan I had my garden cleaned beertaydi waa la nadiifiyay. He had his house wuxuu helay gurigiisa oo cleaned la nadiifiyay. Okay, we are having waxaanu qaadanaynaa my office xafiiskayga cleaned. Okay, he is having his windows cleaned daaqadiisii baa la nadiifiyay. Okay, we are having our windows cleaned saas oo kale. way have kelmadda la yidhaahdo haddii aysan ordinary fal caadiya tahay is used waxaa lagu isticmaalaya number 1 to express inay muujiso possession mulki ama lahaanshaha ama gacan ku hayn. I have a new car baabuur cusub baan leeyahay. She had a lot of dresses waxay lahayd alaab badan ama labisyo fara badan. Yahiyaas wuxuu leeyahay ama hiyaas wuxuu helay ama uu helaa had iyo jeer bright idea fikrad yacni ay ka muuqato mahaara ama xariifnimo ama baraaca. There waxaa jira two ways laba dariiqo oo form lagu qaabaynayo negatives negatifyada ama diidmada and interrogatives iyo su'aalaha with have markii have la socoto. tusaale ahaan he has money haddaan ku yidhaahdo negative wuxuu noqon karaa he has not money ama wuxuu noqon karaa he does not have money. laba su'aaloodna way yeelanaysaa waxaa la odhan karaa has he money lacag miyuu haystaa ama does he have money. The first form macnaha habka hore is more commonly used waxaa in badan laga isticmaalaa in England Ingiriiska and the second form qaabka lamaadna in America laga isticmaalaa. Number 3 macnaheedu waxa uu noqonayaa have markii ordinary verb tahay to mean take ama give ama enjoy ama experience ama encounter oo kale. Take waa qaado, give waa keen, enjoy ku istireex, experience waxa weyn inaad way aragto ama yacni aad aragto la kulanto, encounterna waxa weyn la kulan oo kale. Have markii take noqonayso I have my lunch waxaan qadeeyaa at 2 p.m. labada. I have had my bath waan qubaystay. Okay, wuxuu here halkan had kelmadda is the main verb waa falkii mainka ahaa ama muhiimka while halka have kelmadda is an auxiliary verb. Have laakiin markii give tahay مثلا waxaan oran karnaa we are having a party this evening. waxaan bixinaynaa ama aanu qabanaynaa this a party xaflad baanu qabanaynaa this evening galabta waa tahay waayahay. Number 3 markay tahay enjoy oo kale we had a nice picnic ana waxaan ku istareexnay picnic ama tamashle aad u fiican. Have markay tahay experience oo kale يعني wuxuu ku ay arkay ama la kulmay waxa weeyaan my uncle adeerkii had a heart attack يعني wadna xanuun baa ku dhacday. markay tahay encountered la kulmay oo kale waxay noqonaysaa the widow gabadhii armalada ahayd had a lot of terrible mushkilad badan baa la kulmay la soo darsay. marka brado wuxuu ku do markaynu u gudubno laba nooc bay noqonaysaa mar su'aal bay samaysaa marna negative-ka oo waa helping verb bay noqonaysaa marna waxay noqonaysaa yacni fal caadiya oo facala ah ama yafcalu ama ifcal saas oo kale. Infinitive waa to do, present tense-keedu waa do ama does oo kale, past tense-keeduna waa did, past participle-keeduna waa done. Okay, first person-ku hadduu singular yahay waa I oo do bay qaadanaysaa, past tense-keeduna did bay qaadanaysaa, past participle-kana dhammaan way ka simeen waa done. Pluralkeedu waa do iyo did. Second person-ku waa you macnaha markay present tense tahay waa do, jamaceeduna waa do, labada kalena waa did. Third person-ku markuu singular yahay waa does, markuu past tense yahayna waa did. Okay, pluralkeeduna waa do iyo did. marka do kelmadda la yidhaha as an auxiliary verb haddii auxiliary tahay used waxaa loo isticmaalaya number 1 to form inay qaabayso negatives diidmooyinkan interrogatives iyo su'aalaha. tusaale ahaan they know him isaga way garanayaan, they do not know him ma garanayaan. interrogative waa do they know him. He loves her iyada uu jecel yahay, he does not love her ma jecla, does he love her ma jecel yahay.
she spoke way hadashay. She did not speak may hadal. Did she speak may hadashay. Number 2 for emphasis baa loo isticmaala litawkiid ama adkayn. Look at the following sentences where soo socda bal u fiirso. I know you waxaynu odhan karnaa I do know you. Macnaa dudaas waa litawkiid. The second sentence jumlada sentence-ka labaad is more emphatic. Waa adag yahay. I do know you but I can't give you money. Anoo ku garanaya haddana lacagtaa kuma siin karo. Another example haddaan tusaale kale ku siiyo. Don't make so much noise. Do be quiet. Kun yani saakitan ahaw mid aamusan yani oo buuq badan ha samayn. Number 3 wuxuu ku yiri to avoid waxay manacaysaa kaa joojinaysaa repetition ku noqnoqoshada in short answers jawaabaha gaagaaban and question tags iyo su'aalaha gaagaaban satra wixii lamida. These have been dealt with waxa lagaga hadlay. These have been dealt with halkan waxa lagaga hadlay in unities cutubiyada 51 and 54. Bladoo fiirso do kelmadda la is used waxa loo isticmaali karaa as an ordinary verb. Fal caadi ordinary oo facala ah iyo yafcalu iyo ifcal saas oo kale. I do my homework. I don't do my homework. يعني haddii verbku do yahay su'aasha ku sameeyay oo keenaya do I do my homework well si fiican hawsha miyaan u qabtaa. Okay, he does his work well. Hawshiisa si wacan buu qabtaa. He doesn't do his work well. Hawshiisa si fiican uma qabto. Iyo does he do his work well. I did my work. Waan qabtaa hawshada well si fiican. I didn't do my work well. Si fiican uma qaban. Did I do my work well? He is doing his work well. Si fiican buu qabanaya. He isn't doing his work well. Si fiican u qaban maya hawshiisa. Is he doing his work well? I have done my work well. I haven't done my work well. Have I done my work well? Okay, number 3 waxaa lagu isticmaali karaa informal greeting. Macnaha salaamaha caadiga yani caamka Ingiriiska. When we meet someone we say when marka we meet aynu la kulmayno ay suukan raso someone qof isay waxaynu odhan karnaa how do you do nabaday. When we are introduced to someone ama marka qof la iskeen barayo waxaynu odhan karnaa yani how do you do nabaday. inta waxaynu markaas yani waa auxiliary verbski oo ahaa be iyo have iyo do. Be iyo have iyo do. marka xalqadeeni 18aad ee buuggeena Mega Book of Modern English Grammar halkaas ay noo joogaysaa caawa. waxaan idinku dhaafayaa assalaamu calaykum ورحمة وبركاته. وأنا معلم نور مر لبعض وإحنا دين الله سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. يحلقة دين السجالية تلنا دي تنكو اكتادية بير عليك النور.